kooxda jilayaasha tababarka wada ee Best Films ayaa waxa ay soo saareen filim cusub oo taxane ah kaasi oo la magac baxay mustaqbalkii aan la gaarin. Filimkan oo ah filimkii ugu horeeyay ee ay soo saareen kooxda Best Films ayaa waxa uu hogaaminayay 5 jilaa oo kamid ah jilayaasha Best Films. 5taas jilaa oo kala ah Mustafa Mario, Cabdiqaadir Axmed, Shucayb Raxmaan Ismaaciil iyo Master Joker-ka. Filimkan oo la magac baxay mustaqbalkii aan la gaarin ayaa waxa uu koobsanayaa dhammaanba mustaqbalka iyo xaaladda waxbarasho ee ay ku jiraan dhalinyartu sanadada dambe. Filimkan oo ah filimka ugu talagalan dhalinyarada Soomaaliyeed kooxda Best Films ayaa waxa uu noqon doonaa filimkii ugu horeeyay ee ay ka mid dhaliyaan kooxda Best Films. haddaba filimkan la magac baxay mustaqbalkii aan la gaarin waa filim xeeladiisa wata waxaadna u daawan doontaa baartiyo goordhowna naga filo qaybta koowaad ama baarti 1 waxaadna naga daawan doontaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ama kanaalka yaga Best Films isla haddana aad naga daawanaysid. soo kale waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe saarto channelka, soo kale fiidiyogana aad like saarto si uu u gaaro asxaabta.